Asalaamu calaykum, halkan waa Saciid Madaale Sports. Waxaad kusoo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha. Waxayna fiirin doonaa kooxaha Italia iyo North Ireland, Turkiya iyo sidoo kale Romania, iyo sidoo kale kulanka weyn oo u dhexeeya Brazil iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta Faransa. Saaxiibayaal, ha iloowina subscribe tahdo, like dhahdo fiidiyoga, waad mahadsantahay. Saaxiib, waxaan kaga codsanayaa inaad subscribe noo saartaan sababtoo ah waxaan waa adduunyo weeyaan. Saaxiibayaal, ciwaankana walaalkiin nin Soomaali oo walaalkiin ayaa iska leh. Saaxiibayaal, ha iijibinina gaalada, waxay rabaan ciwaanka inay iga xiraan. ciwaankana hadduu hal bil gudihiisa 100 subscribe ku gaari waayaan waa la xiraa. Marka saaxiibayaal, bisi waxay nooga harsan, ha iloowina subscribe noo saarto, waad mahadsantihiin. Haddii aan ku bilaawno kooxda kubadda cagta ama xulka kubadda cagta Italia, caawa wuxuu la ciyaarayaa xulka kubadda cagta ee North Ireland. waxayna ognahay inuu ka tirsan yahay semifinalka playoffka, ciddii soo baxdana ay final tegi doonto. Intan waxaa kasoo socda Turkiya iyo wax kale, ciddii soo baxdana iyagana inay tegi doonaan final, taasina ciddii soo baxda ay aadi doonto dhankaas iyo koobka adduunka. sababtoo ah Italia waxay doonaysaa inay kasoo qayb gasho koobka adduunka, sababtoo ah waa xul sanadahan dambe aad u liita, wax ku dhaca ma naqaano. waa ani ahaan waxaa sabab isleeyahay kubadahan laga tegay oo ay isticmaalayaan oo 3 dambe ah iyo 3 5 iyo 2 ah, taasoo sida aad moodo in ay ciyaarayaan gameka football oo kale, taasina ay sabab u tahay inay waayaan RB LB oo ay laga adkaado. wayna ognahay mar walba oo ay koox Italia sanadahan dambe Champions ka timaado ayna kusoo gasho shaxaas oo kale laga wada adkaado. marka waxaan isleeyahay ani ahaan Saciid ahaan 3-5-2 oo ay kusoo galayaan ayaa sabab u ah isleeyahay, iyo kubadahan oo dhadheerka oo maalmaha Bruneiga waa isbedel, macnaa position ayuu noqday. kubada dhadheer iska ciyaar ma ahan, waxaa loo baahan yahay kubada gaagaaban inay ciyaartid aan ciyaarta haysan kartid. Italia waxyaabaha ugu badan ee loo adkaado waxaa kamid ah tusaale ahaan 70 ayaa gool leedahay, 70 ayaa gool leedahay. maxaa loo baahan yahay marka inaad kubada haysan kartid oo position haysan kartid, oo sida xulalka England iyo Spain oo kale inaad position haysan kartid ayaa loo baahan yahay. 70 kaas ciyaarta 20 kaas daqiiqo dhiman waxaa loo baahan yahay inaad marka aad dili kartid ciyaarta oo kubad laga haysan, sida kooxooyinka ay ciyaaraan Man City iyo Barcelona oo kale. markaas 70 ka gool leedahay, xaaladan kugu xunta waana position samey kartid oo ciyaarta dili kartid. marka Italia position kuma fiicna, waa la yaqaanaa Italia xulka macal kooxaha dhammaan kuma fiicna dhanka iyo kubad haysashada. marka dhanka kale Ireland waxay ku fiican tahay horta ciyaarta habada sare ee weerarada kubadaha counter attack. waxay ku fiican tahay counter attack, daafac iyo kaaxirihe counter attack ay ku gaaday. Italia ahaan counter attack way ku fiican tahay sababtoo ah 3 difaac weerar ay soo aadayaan, RB LB malaha, garba toos malaha, sababtoo ah nimankan horta counter attack waa lagu dilaa. nimankan counter attack ay ku fiican yihiin, waxaana hogaamiyay macalin oo 36 jir oo lagu magacaabo Michael O'Neil. waxayna ku jirtaa Ireland kaalinta 69 ee qiimeynta FIFA. kadib markii playoff soo gaareen National League, waxay kaalinta 3 ka galeen gruubyada iyagoo ka dambeeyay Germany iyo Slovakia. badanaa waxay ku tiirsan yihiin kubada dhaadheer, waxayna khatar ku yihiin kubadaha go'an ama kubadaha set piece-ka ay khatar ku yihiin. waa sida Arsenal oo kale ayaa leeyahay nimankan. sida Gattuso marar badan uu sheegay, Talyaaniga waa inay awood u yeeshaan ayaa liiday inay saadaaleen khatarta ka imaan karta dhanka iyo Ireland, kana fogaadana ay qaladaadka fudfud, sababtoo ah hal qalad aad sameyso ayaa wuxuu bedeli karaa ciyaarto dhan. oo hal qalad aad sameyso adigoo eber ciyaarta oo 90 iyo hal qalad aad sameyso ayaa hal eber lagu adkaan karaa. waa inay ka fogaadaan khataraha qaladaadka fudud ay sameynayaan si ay fursadaha u siiyaan cadowga ayaa lagu yiri kubadaha dhaadheer waxay kubadaha geliyaan ayaa lagu yiri xulka kubadda cagta ee Norland. bokoska qalad kasto dhacana goolhayo wuxuu ku tuuraa kubadda 70 ilaa 80 mitir, macnaha goolhayo counter attack waaye. goolhayaha 70 ilaa 80 mitir ayuu kubadda soo tuuraa, iyadoo ay jiraan ayaa liiray 9 ilaa 8 ciyaaryahan oo diyaar u ah inay weeraraan. waxayna ku fiican yihiin kubadaha weerarka, waa koox toos u ciyaarta, wax kastoo ay sameeyaan si fiican ay u sameeyaan ayaa liiray. sabab Talyaaniga marka maxaa laga rabaa inay diyaar u ahaadaan 90 daqiiqo oo feejignaan ah, oo inay awood u sii yeeshaan inay ciyaarta ay si sahlan aysan u dhumin. marka
haddii aan fiirino ciyaaryahankan weerarka u ciyaara Italia Matteo Refugi lagu magacaabo si fiican ayuu u yaqaanaa marka loola ciyaarayo xululka noocan oo kale ah ama xululka ciyaara counter attack difaaca gala ayaa la yiri si fiican ayuu u yaqaanaa inuu ciyaaro sababta ah sanadkan xagaagii 2024 Atlanta wuxuu u dhaliyay 25 gool isagoo ah rikoor cusub oo koox Talyaani ah 6 bilood ka hor ayuu taageerayaasha hortood kula dabaaldegay 2 gool uu ka dhaliyay xulka Estonia maantana wuxuu rajeynayaa inuu mar kale sii dhaliyo tan iyo markii uu Gattuso xulka la wareegay marka maxaa isbedelay Refugi weeraryahanka Italia wuxuu noqday ciyaaryahan bilow ah 6 kulan oo kamid ah 7 kulan ee u dambeysay uu maamulay Gattuso isagoo dhaliyay 5 gool sidoo kale wuxuu sii waday gool dhaliye xitaa markuu Sacuudi Carabiya halkaas uu 18 gool ku dhaliyay 27 kulan uu ciyaaray kooxda Al-Qadsa 27 kulan ayuu ciyaaray wuxuuna u dhaliyay 18 gool tani waa mid aad u sareysa marka tan iyo markii horyaalka Sacuudiya hakad u galay 14 Maarso weeraryahanka Real Talyaani wuxuu dib ugu soo noqday xulkiisa isagoo iyadoo aan ciyaartoy dhan soo wada naqan uu bilowday tababarka isaga iyo tiim kale wuxuu sheegay inuu jecel u qabo in xulkiisa uu soo laabto darteed uu bilaabay training-ka isagoo aan ciyaartoyda aysan soo xaadirin hortood ciyaartoydan imaan ayuu ninkan xulka imaaday kadibna oo tababar ayuu soo bilaabay marka su'aal la weydiin wuxuu ugu jawaabay waxaan rabaa xulkeyga jaceelka aan qabo darteed inaan soo baxo ayuu ku siray marka daan fiirino taariikha u dhaxaysa Talyaaniga iyo sidoo kale xulka kubadda cagta ee North Ireland waxay wada ciyaareen 11 kulan ay wada ciyaareen 6 kamid ah waxa baysay kooxda kubadda cagta ee Italia ayaa badisay halka 2 kamid ah North Ireland ay badisay halka 2 kamid ah barbara la galay Italia waxay si cad oo awood u leedahay marka loo fido rikoorka xoogan ay ku haystaan iyadoo badiyay 6 kamid ah kulamadii 11 ay ciyaareen waxaana u waaweyn guulaha ay gaareen 2021 North Ireland iyo Italia barbardhac ay ku dhamaadeen isla 2021 Italia 2-1 ku badisay 2021 Italia ay 3-1 ku badisay 2010 eber ayaa la galay 1958 North Ireland ayaa 2-1 waxay Italia ka reebtay koobka adduunka tani waa taa guushii ugu weyneed ee North Ireland gaartay 1958 marka wax walba waa suurtagal waay tababaraha Italia naftarkiisa Gattuso oo hadlay wuxuu yiri caawa si walba ay sameyn doonaa sida aan ugu hortagi lahayn ayay yiri inaan ka harno koobka waxaynu doonaa yiri inaan soo baxno ciyaartoyda waana si fiican aan ula hadlay ayuu yiri iyagana waxay rabaan inay soo baxaan sababtoo ah koob adduun bilaa Italia meel waa cunto bilaa cusbo oo kale waay Italia marka waxay rabaan inay soo baxaan an ahaan waxa fiican inay Italia soo baxaan sababtoo ah sida koobka adduunka dhadhamiyeyso oo Italia inay soo baxdo ayaan rajeynayaa haddii aan fiirino kooxaha Turkiga iyo sidoo kale Romania ayaa ciyaaraya Turkiga lagu ciyaaraya sida lagu soo baahiyay website-ka Turkish Football Club waxaa la sheegay in xalay ciyaartoyda loo qabtay casho sharaf iyadoo la macsalaamiyay ciyaartoyda inay ay ka soo baxaan Romania waan ognaa Romania sanadahan dambe waa xul aad u soo adkaaday iyadoo meel fiican ay ku soo gaareen wareegga guruubyada caawan Turkiga iyo Romania soo baxaya waxaan la rajeynayaa 70% inay soo bixi karto xulka Turkiga haddaan fiirino saaxiib ciyaarta weyn ee saaxiibtinimo u dhaxaysa kooxaha Brazil iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta xulka kubadda cagta ee Faransa waa ciyaar aad u xiiso badan tani waa ciyaar aad u xiiso badan haddaan fiirino taariikhii ugu dambeeyay ay labadana kulan isku baxeen Brazil iyo Faransa waa mid kamid ah kulamada aadka ugu adag ee caalamiga labadana xul waxay leeyihiin taariikh aad u dheer kulamo weyn gaar ahaan koobka adduunka marka loo eego Brazil waxay kulmeen horta 15 kulan ay kulmeen Brazil waxay guuleysatay 6 kamid ah ay guuleysatay waay 15 kulan Brazil 6 kamid ah ay guuleysatay marka maxaa soo hiray 9 kulan soo hirno 6 kalena waxaa guuleysatay Faransa ay guuleysatay marka 12 baxnimo 6 ay ka guuleysteen 12 way baxday marka 3 barbara ay soo hartay saddexda soo hartan waxay galeen barbara ay galeen 15 kulan saas ay ku dhamaatay 6 kamid ah Italia ayaa guuleysatay Faransa ayaa guuleysatay 6 kamid ah Brazil ayaa guuleysatay 12 saas ay ku baxday 3 kamid ah Brazil ayaa la galay marka
tani maxay ku tusinaysaa inay labadan xul isku awood yihiin, isku mar yihiin. Marka haddaan fiirino kulamadii ugu caansanaa ay ciyaareen 1958 World Cup-ka semi-finalka Brazil iyo Faransa 5-2 ayaa Brazil ku badisay. ninka lagu magacaabi jiray Pele oo ahaa aabihii kubadda cagta ayaa asigoo 17 jir ah wuxuu xulka kubadda cagta Faransa ka dhaliyay hat-trick. Brazil halkaas ayay ka bilaabeen awoodooda dunida. 1986 World Cup-ka quarter finalaha ama sideedamaadka hal ayay galeen, balse Faransa ayaa 4-3 ayaa penalty ku badisay. mid ka mid ah kulamadii ugu xirfadaha badnaa taariikhdooda ay ahaayeen Faransa ayaana rigoorayaal ku soo adkaatay kulankaas. 1998 Faransa ay 3-0 ku soo adkaatay Brazil iyadoo ahayd final ay wada ciyaareen. waxaana xisad maday in Zinedine Zidane uu 2 gool ka dhaliyay. Faransa koobkoodii ugu horeeyay ay ku qaadeen gurigooda wuxuu ahaa 1998 3-0 ayay Brazil kaga qaadeen. 2006diina sideedamaadka koobka adduunka Faransa ayaa 1-0 ku soo baxday. goolkana waxaa dhaliyay ciyaaryahaankii ama halyeyga Arsenal Thierry Henry. Faransana mar kale ay waxay Brazil ka reebtay koobka adduunka. Brazil taariikh ahaan waa xul aad u farsamo badan. Faransana qarnigan 21aad waxay noqotay xul aad u xoog badan oo nidaamsan. Faransana waxay ka xoog badneed kulamada ugu muhiimsanaa ee casrigan ama qarnigan 21aad ee la ciyaaray. saaxiibayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa warbixinadii maanta ay idinku soo gudbinay halkan. saaxiibayaal qofka daawadaba waxaan ka codsanahay inuu subscribe noo saaro. waa codsi waa saaxiibayaal wiil oo Soomaaliyeed ayaa ciwaankan iska leh. saaxiibayaal qofka daawadaba waxaan ka codsanayaa inuu subscribe ii saaro. waad mahadsantihiin.